walaalayaal magacayda waa Cabdiraxmaan Cabbaas waxaan ahay secretary-ga committee-da suuq mugdi maanta meeshan aan iskugu imaanay arrin aad iyo aad u qabdaran oo na dhib hayso ayaa isku keentay arrintaas oo ah canshuur municipal ay noo keentay ana ku salaysneen wax sharci ah canshuurta sayta municipal ay keentay waxay dhaheen waxa la rabaa in la bixiyo bil walbo 3,000 shilin wixii bixinahayo canshuurta sayta 3,000 waxa weeyaan guryahanayto darbiyaha suuq mugdi ku salaysan oo dhanbo darbiyada sayto waxa ku jiraan laba nooc ay u kala baxsan yihiin qof iska leh iyo qofka ku ganacsanahay qofka ku ganacsanahay waxaan bixinaa annual business permit oo midka ugu badanna uu yahay 7,000 midka ugu yarna uu yahay 3,000 mise 4,000 wax saas ah waan bixinaa 3,000 oo shilin oo hadda la leeyahay bixiya 3,000 oo sharci ku salaysan ma aha municipal CEO maalin hore arrintan markaan ka caawanay wuxuu soo bixiyay uu soo hadlay wuxuuna ka soo hadlay in la siiyo waxa la siiyay appointment letter oo waxa siiyay wasiirka ganacsiga finance officer yaa wuxuu dhahay wuxuu siiyay appointment una igu amray inaan ku bixiyo inaan lacagta sayto soo guro 10 meel ayuu sheegay 10 ka meel waxa kamid ah meeshanayto hadda annaga aan taaganahay oo suuq mugdi ah sharci sidiisaba markii la baasmarin rabo haday noqoto lacag bixis waxa la rabaa sharciga inuu jid soo maro procedure municipal waxa la rabay markii lacagtanayto appointment markii la siiyay waxa la rabay inuu isweydiiyo laba su'aal asaga naftirkiis lacagtan aan gurahayo ma sharciga ku salaysan tahay iyo ma xalaal ba mise xaraam waay waxa kale taala mid ugu hore annaga iyo municipal guryahanayto aan ku jirno annaga iyo municipal dhulka haday dawladda iska leedahay dawladda sideedaba dhulkeeda waxay ku bixisaa lease agreement either leasehold ama freehold labadaba municipal nooma hayso waxay noo haysaa wax aan annaga ku salaysnayn sharci ahayn leasehold annaga intaan fadhiisanay municipality mode of engagement between suuq mugdi community iyo municipality matasho suuqiyaal iska soo kacay waa la soo galay lacag 3,000 sharci ku salaysan in la iska guranaya markan way oo bil kastana ee sanadna ma aha sideedaba dawladana dhulkeeda markay lease gareynayso annual iyo waxay ku lease gareysaa quarterly oo 6 months ama 1 year wax kale ma jirto after that ya waxa loo baahan yahay lease-ka markan annaga kala qoran agreement aan sameeyno ya loo baahan yahay marka tax-ka sayto sidii aan ku bixin lahayn inaan ku kala baxno anaga ma diidani shicib lacag bixiyaana waxaan bixinaa 4 canshuur baan bixinaa suuq mugdi waxaana laga qaataa 400 bilna laga qaato waxaana laga qaataa sanado business permit waxaana laga qaataa 20 shilin oo daily la guro waxa kale oo laga qaataa cess oo bridge markii la soo maray gaariyaha noo keenan alaabta ya 1,000 shilin laga qaataa gaari walbo soo galayo midanayto meelay ka socoto ma ka sayno municipality wuxuu dhahay waa financial bill oo la soo baasmariyay county 2023-2024 ay soo baasmarisay county assembly-ga markay soo baasmalinayso procedure ba jira wuxuu dhahay waxa la sameeyay wax public participation la dhaho waxaan ka rabnaa inuu noo sheego public participation meesha lagu sameeyay qofkii intuuna invite gareeyay annagana engage gareeyay oo public participation noo sameeyay hanoo soo saaro miiska as a proof hada looma baahno as a proof hanoo soo saaro midda kale lease agreement ka suuq mugdi iyo ay galeen municipality hanoo soo saaro suuqa hanoo soo saaro miiska so that lease agreement ka sayto aan ku kala garan lacagtan anaga bixinayn annaga iskale waa service that is coming back to ourselves service ka property tax kas la rabo annaga inaan bixino waxay noo qaban lahayd qaynuun baan u baahanahay municipal qaynuun nooma hayso way iska soo kacday appointment letter liisiyay I have to do ABCD lacagtan iska gurana ma salaysno jidna ma laha waxaan rabnaa tax annaga waxaan nahay loyal citizen we are patriotic county government ka canshuurta aan bixino waa lacag aad iyo aad u badan laakiin waxaan u baahanahay wax jid ku salaysan municipal lease of agreement na noo keento aan kala saxiixano aan fadhiisano dhulkayni hanoo hagaago xor hanoo ahaado annagana lacagta canshuurta ka xalaalkeed aan bixino laakiin tuugnimada lagu wado
حتى لعقتنيتو ما هذا هيسو county revenue fund والعقان كاش كوبحين هينو رسيد كأن وضن أي نو جوين هيان ورسيد كقرن miscellaneous income رشيد كقرن ما لا حتى vote ما قبل حتى vote ما قبل within the county system حتى vote ما قبل والعكس كلباتن كان يكملها نلمت لها يو waxay tagay ku saleysantaa noloma sheegayo marka waxaan rabnaa liiska county government ay keenayso agreement inaan wada galno aan wada fadhiisano markaan wada fadhiisano aan wax meel isla saarno laakiin Kenyajigan intay socoto annaga wax lacag aan bixinayno malaha lacagta hadda ay guratana waa more than 50 houses or 3000 shillings aan bixinayna almost 200 shillings lacagtaas 200,000 shillings lacagtaas sayto lacagayana way lacagta waxaan rabnaa in la soo celiyo municipal ay soo celiso then provide an evidence sidii aan ku bixinayn lacagtanayto we are ready to pay laakiin isaan ku bixin lahayn noo keena niman dhibaynana male masaakiin baana waxaan rabnaa dawladda inay dhulkuna waa in 3 kun awood uma hayno waxaan rabnaa si qafiif oo shacab dawladiisa ay ugu naxariisan jirtay inay noogala naxariistaan rabnaa anaga waxaan rabnaa dawladda inaan dadkeeda noqon oo musuqmaasuq iyo wax kala iyo dib kala aan wadin anaga ilmaan ku soo korsanay ilmana waan ku korsanaynaa insha Allah wixii noo dhiman wixii anaga dhalna waxay dhalayna hadda koris waxaan rabnaa dawlad il wanaagsan inay nagu fiiriso oo maxay ahayd ay noo fiiriso dawladda aan u hogaansanahay anaga dawladda waan u hogaansanahay hogaanka dawladda aan u hogaansanahay iyadana hanala qaadata dib ma wadna shicibkeedii aan nahay dawladda shicibkeedii aan nahay anaga 3 kun oo lala soo booday awood ma hayno bil walba ma iska bixin karna ama sanad inaan wax ku bixin ama 6 bilood ku bixin hanaga ogolaata wax macquul ah hanaga ogolaata dibna ma wadna nabadaan noo dan dawladii dadweynaha waa isla shaqeeyana nabadaan ka shaqeeyna I'm appealing the Municipal Council of Garissa to call stakeholders engagement. We are law-abiding system. We understand what the law says about land rates and property rates. We need a framework of engagement. Currently, there's no framework of engagement between the Municipal Council of Garissa and the people of Somugdi, more so those who reside outside the perimeter wall. We have been the owners of this perimeter, these stalls, since 1990. We are the second generation owners. We have inherited from our parents, some elderly, some deceased. There's no a framework of engagement. What they are saying might be right, but the mode of engagement may be different. I urge the Municipal Council and any policy, fiscal policy implementers of Garissa County to formulate a framework of engagement between the Somugdi community and the municipality and agree a mode of payment, define the revenue stream first. We must define the revenue stream. Now what they are collecting is miscellaneous. They are not telling us a rent, neither a rate. Let them define the identity of the revenue. We engage and come into an agreement that is binded by law and will be abided to. Any contrary to that, using intimidation and extortion will not see the light of the day. I urge, we are law-abiding citizens. Let's have an engagement forum, deliberate this issue, formulate a policy, make it to law, and we will abide. haddii ilaahay diidin waxaan joogaa 52 hadda rataay baan qaadan hayaa waxay sanadkan aran weligaan maana arkin tarasbood mar wana fijini marna lacag keenay leeyihiin dalad masuuranayno weelasho dhan waa la halgaada waa la tuura meel aan joognaba male lacagti keena la leeyahay lacagta xageenka keenayna meel aan ka keenayno male meel aan ka keenayno male meeshan ku shaqaysanayna waa la diiday hadii la diiday meesha lacagta laga keenay waa tani lacagti waa la diiday meesha lama fadhiisanaaye ma yeeli karno dawladda daarabto si walba hana yeesho ma yeeli karno taasti aan yeelayna ma aha 3 kun bixiya la leeyahay 3 kun ma bixin karno tabartayni ma aha ma bixin karno lacagta sharcina kama sasmeysano
شرعت الدولة هنو هركينو مركزان بحينينا شرعت الدولة هنو لو هركينو وكوس أبسين يعني بعد ما أنا باش كده عادي يعني تقدم جديد من الدكوات يتطلع بعض أو طلع بعض ما أرتي هذا الحين بالدرسي ما أنا سوق وحكده بنام بحب كده عاي طائرة بنام كلو جوي معي هذا تيجي قاس بالله استعمالي مركب وحان عصنينا dadweynaha wax tabanay xafiisyaha jiraan xafiisyaha tagaano yay dhibaato loo keenin suumada waxa iskaga loobayeele dad biro ku socdaa jira oo wiilsha iskaga socdaan baa jira yaan dhibaato loo keenin dib wax tabanay xafiisyaha aad waxa ay labaysa lacagta halhaanta badan dhalisay oo 3 kun waxa jirta maalinka 30 gaari ama 20 gaari wax ka badan baa imaata oo qudaar keenta gaari kasta waxaan ka bixinaa kun shilin waxaa jira awsad بريمة تقول بنانكيس waxaa ka qaadna 20 shilin maanta la qaada waa bish waa 600 leesinkina waa shubna ma faan sanadkii waan shubna waxaa noo dheer 400 baa naga qaadaa gudaha suuq mugdi 4 jeer baa suuq mugdi laga qaadaa canshuur mid kale meel naga fuusho ma hayno hayday dirtase ani dawlad ka hormaansinna sababtay ku dhacday iyo sababta lagu meel mariyay in loo sheegaan rabaa naga jaahil bixiyo dawladdu waxba loo sheegin inta canshuurta la qaado qori lagu ma qaado laakiin tani qori baa lagu qaado askar baa daba socota laakiin kuwan qayaar keenan ku bixina waan leeyahay haday wax sax yihiin maxaa qori lagu dawata maxaa qori lagu dawata marka Soomaali waxay tahay heela dareen baa ayagoo habeen baa la tuma arrin xoog dareen bay keentay war magaalo warqad buu ku yaala cadeemo badan baan u baahanay waxa ka rabaa inaan ku daro suuq albaabka laga soo galay waxaan rabnaa habeen ma noo furnaado qudaarta maalinta kale waa inoo imaataa waxa soo dib dhaca sida qaraha ka soo dib dhaca waxaan rabnaa markuu qaraha soo dib dhaco uu imaado nafteeda albaabka in loo furo suuqa inaan ma artay barabahan ka faa'iideysano qofulkan lagu dawado in laga daayaan rabnaa qudaarta kale waxay yar badan waxoogo viyaasi jawaano ku jira yaanyada waxa ku jirta gareed basal iyo waxa ku jirta jawaan asagoo miramada wuxuu degdi wuxuu ka yar dhibadan kuwa kale waxa kale ay afreeya bil Ramadan baa lagu jira 10 dama hadda la gaaray caaw taajid waa bilaabani dadka meesha jooga waa ehelkiini meel kale kama imaan meel kale ma haystaan 10 bari dadka in la badbaadiyaan rabnaa waxooda iska gataan ilaahay aad ka cabsataan niyo cibaado u jeesto dadka masaakiinta aan la dhimin 10 bari dadkana dadweynaha waxaan ka codsan ayagana 10 bari wixii ka dambe inay meel raadsadaan barabaraan deganaan aan ku ganacsanay ma suurtagelayso inagana meel raadsida